gargaarkan caafimaad oo isugu jira agabyada kala duwan ee ka hortagidda xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ayay wasaaradda caafimaadka Galmudug qorshaysay in la wada gaarsiiyo dhammaanba cisbitaalada Galmudug waxaana wajiga koowaad ee wareejinta agabkan lagu gaarsiiyay cisbitaalada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka kuwaasi oo baahi weyn u qabay helidda taakuleyn noocaan ah oo sahli doonta in xanuunkan laga gaashaanto oo uusan saameyn ku yeelan shaqaalaha xarumaha caafimaadka cisbitaalada Xanaano Bishacas iyo Dayax oo kamid ah xarumaha agabkan wasaaradda caafimaadka gaarsiisay ayaa dhaqan geliyay dhammaanba habraacyada wasaaradda caafimaadka Galmudug u dejisay in lagu ilaaliyo badqabka shaqaalaha iyo bukaanada xanuunsanaya ee booqanaya inta lagu guda jiro xaaladaha feejignaanta u baahan ee marxaladda soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa faray dhammaanba bahda caafimaadka in ay muujiyaan mas'uuliyad ballaaran inta xaaladdan lagu jiro waxaana uu intaa raaciyay in wasaaradda caafimaadku diyaar u tahay in la tayeeyo cisbitaalada iyo shaqaalaha heeganka ugu jira la tacaalidda xanuunka COVID-19 waxaan soo gaarsiinay si shaqadaas loo qabto agab loogu talagalay nadiifinta iyo ka hortagga cudurka iyo sidoo kale makiinadihii lagu sameynayay screeningka oo lagu baaray dadka xarunta imaanaya si loo hubiyo heerkulka qofka imaanaya xarunta caafimaadka haddii laga helo qandhana loo sameeyo tarayaadkii iyo meeshii lagu hubinayay iyo baaritaankii lagu xilo wasaaradda caafimaadka iyo shaybaarkii dhexe sidaasaan marka qalabkaasaan rabnay kooban inaan ku wareejino xarun walba aan ku wareejinay oo saa ka tagnay dhammaan degmooyinka dhanna waa la gaarsiinayaa xarun walbana waxaa laga rabaa in screeningkaas uu ka bilowdo looga hortagayo cudurka wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la shaqeeya intaba waxaa ka go-an in bulshada reer Galmudug awal dhibaataysneed cudurkaana uu dib ugu soo laabtay in intii karaankeena aan iska kaashano inaan ka hortagno cudurka 90% cudurka waxa lagula tacaali karaa ka hortagga inta u baahan waxa laga yaabaa isbitaal inay galaan inay 10 ilaa 5 yihiin laakiin 90 kale 100% waxay naga sugayaan inaan wacyigelin iyo nadaafad iyo hygiene sanitationka aan fayadhowrka anaga hortagno taasaan iska kaashanaynaa taasaan ku dalaalaynaa sidoo kalena waxaa dib loo howlgeliyay xarumihii isolationka ee ku yaalay 4 degmo hadda Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo Caawudwaaq iyo Gaalkacyo ayaa shaqadoodii socotaa shaqaalaha caafimaadka hadda ka shaqeynayaan Cabdullaahi Warsamo Rooble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb